maamulka degmada Lughaya ayaa waxay 300 oo qoys oo raashina kala wareegeen jimciyadaha Al-Rahma Al-Khayriya iyo Rajo deeqdani oo loogu talagalay dadkii ay saameysay duufaantii Sagar waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdulle Maxamed Ibrahim iyo mid ka mid ah Rajo oo ku hadlaysay afka ururkaasi maanta oo kale aan joogno degmada Lughaya waliba aan magaalada joogno hadda la idmaayo كرورة الحمد لله رب العالمين ما أنت هالكن وجمعية الرحمة خيرية يرجو أيكون قريبين صدق بقوله كويس يكون سيان هالكن راش يكون سيان والحمد لله رب العالمين ويتهاي وليبا أن ولي ودنا ضوفان كسقر كذا عيدالك كل معاون سويلا أن ودنا جواب بدنا نصامرين وحيلها مهدي أن هذا ما أنت هالكن شوقنا ظروف أنا كورمين أنا أتهاي كل إن هذا اللي ما يو ka jawaabno ظروفta ka dhacay dalkan ka jawaabno marka insha Allah waxaan u rajeynayaa in gobolkan dhibaato ku dhacdo aran adag ba ku dhacday oo duufaan ba ku dhacay in loo soo jeesto wax badan la qabtay insha Allah bilaa kariim run ahaantii maxaa la yiraahdaa ururka Rahma iyo Rajo run ahaantii aad ayaan uga damqanaa dadka masaakiinta ee ku dhaceen abaaru kulay waa dadkeeni intan iyo in ka badan toon waxba uma tarayso markaas waxaan jecelnahay inay hay'adaha kale iyo ururada kalena saan oo kale ay isku soo xilqaamaan oo ay u yimaadaan goobtan waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan ka mid ah degmada Lughaya iyo mid ka mid ah odayaasha degmadaasi waxaan u sheegay in deeqdani wax weyn ka tari doonto dadka tabaalaysan ee saameysay duufaantii Sagar gudoomiyaha degmada Lughaya ayaa dhinaciisa waxa uu soo dhaweeyay deeqdani isagoo u mahadnaqay cidii soo dirtay runtii waa raashin maxay deenay waqtigii loo baahnaa yimiday dadkuna aad ugu baahan yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kuwii soo bixiyay inuu miisaadka xasanaadka ugu daro waxa ay la soo baxeen qaar ka mid ah dadka raashinkani loo qaybiyay ayaa dhinacooda iyaguna ka mahad celiyay ilaahay annagana ha noo barakeeyo iyaguna halka ay ka soo bixiyeen Allah u barakeeyo annaguna waan ku mahadsanay iyagana waan ugu mahadnaqnay alxamdulillah rabbil alamin dadkani oo ku sugan xaalad u baahan in loo gargaaro isla markaasina aan haysan hooy iyo wax ay galaan